kooxda heerka koowaad ee ka dhisan magaalada Hargeysa ayaa sanadkan abaalmarino kala duwan bixisay taas oo ay u garteen dhowr ciyaartoy oo kala duwan oo kamid ah kooxda ciidanka asluubta. macalinka kooxda ciidanka asluubta iyo gudoomiyaha kooxda ciidanka asluubta ayaa ka xaalad waramay xaaladda kooxda ciidanka asluubta haatan ay ku jirto. sidoo kale waxa ay gudoonsiiyeen qaar kamid ah ciyaartooydii ugu wanaagsanaa sanadkan 2019 waxaana hadaladoodii kamid ah sidan: bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore waxa iska ilaahay mahad iska leh waxaan u mahadnaqaynaa Astaan TV oo ah TV aad ula shaqeeya dhalinyarada ciyaaraha oo jecel bahda sportska ka markan ka yimaado. waxaan maanta oo dhammaad ku soo gabagabeynaa kooxda asluubta oo muddo badan soo almiiteynayay sanad kale ku sii sabuuteynaysa sanad wanaagsan sanadka cusubna ka filaysa inay sanad cusub ilaahay uga dhigo kooxda oo maanta isku timid oo aan bixinayno ajuurooyin fara badan oo aan bixinayno jaayisado fara badan oo maanta aan ku soo gabagabeynayno traininga waa laga sheekeeyay weeyaan kooxda in badan soo almiiteynayay wad arkaysaano waxaad ka muuqataa idilada kooxda waxa ka muuqataa wanaaga kooxda waxa ka muuqataa tababarka kooxda waxa ka muuqataa ixtiraamka kooxda waxa ka muuqataa wanaaga kooxda. halkan maanta waxaan ugu tala galnay inaanu ka bixino abaalmarin aanu doonayno inaanu siino ama aanu gudoonsiino ciyaartoygii ugu wanaagsanaa sanadka 2019 waa wax anagu aanu garanay maadaama iyadoo aan cid kale iyo wax kale aanayna soo dhexgelin koox ahaan baan doonayna inaanu sameeyno ciyaartoygii sanadka noogu wanaagsanaa kooxda ciidanka asluubta taasoo ciyaartoydu tahay dhiirigelin iyo moral oo anagoo ah kooxda ugu tababarka badan la caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland. koox walbana waxaa jirta ciyaartoy in la maamuso la yiraahdo ciyaartoygaas qaaday xidiga kooxda. maantana taasaan u nimi halkan anu nin kooxda ka tirsan runtii ma yihi laakiin waxaan ahay nin kooxdan caawiya oo ka caawiya xagga coachnimada. Sacad Amiin iyo Xamse Cumar Xamse Jigijaan maroosa yar baxday codayn saddexaad baa haddana markaa dhacday oo doonaynay in labadaas nin lagu kala saaro. falilaahi alxamd. horta labadooduba waxaad moodaysaa inay aad iskugu dhigmayeen aanay wax aliyaalo waxay ku kala dheeraayeen aanay jirin aanay badnayn laakiinse labada qof ee tartama mid un baa kale codkooda raacdayo guuleystaa. hal qof un baana nasiib u yeeshay inuu noqdo laacibka sanadka 2019 ee kooxda ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan u noqonayaa Xamse Cumar Xamse Jigijaan. xamse waan ugu hambaleynaa laacibka uu qaatay insha Allah tacaala sanadka xiga waxaan jecelnahay maadaama sanadkan maanta ay tahay blow aanu doonayna aragti ahaan inaanu soo bandhigno oo bilowga iyaga tahay sanadka dambe waxaanu doonaynaa inay noqoto codayn ballaaran insha Allah tacaala iyo xulitaan intan ka badan. ugu dambeyntii kooxda ciidanka asluubta ayaa loo doortay xidiga ugu fiican sanadkan 2019 Xamse Cumar ayaa dareenkiisa la wadaagay Astaan Sports. dareenkayga kulli halkan kuma soo koobi karo marka hore ilaahay baa mahadle waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan kooxdeeda ciidanka asluubta gaar ahaan macalinkayga gudoomiyahayga macalin ku-xigeenka iyo macalin Cumar kulli dareenkayga halkan kuma soo koobi karayo abaalkaasuna waa mid aan u hayo haddaan ahay ciyaartoy ka tirsan kooxda asluubta. insha Allah waxaan rajaynayaa dadaalkayga inaan aad uga sii dheereeyo waxaanan ku hamugeynahay in ilaahay la garab galo. insha Allah waxaan rajaynayaa guulo ka badan inaan gaadho aniga iyo kooxdeeda oo midaysan. insha Allah waxaan leeyahay guul aad baan u salaamayaa.